waran adiga oo shaqeynaya 2 sano lacag la'aan filashadaada ugu weyn ay ahayd maalin kamida maalmaha goobtan 2 sano aad ka shaqeynaysid lacag la'aanta in mushaar lagaaga qori doono si lamida saaxiibadaada shaqo wadaagta aad tihiinba filashada ugu weyn ee ahayd mushaarkaaga ha yaraado ama ha badnaado maalin uun halkan mushaar lagaaga qoro adigoo subax hore shaqada soo galay soo lebistay xitaa bajaaj raaca ku gambisay BL soo raacay lacagta BL ka xitaa hooyadii 12 sano wax ku soo bareysay ilaa heer jaamacadeed wali ku siinayso BL ka baa raaca marka shaqada soo gashay ma lagu dhahay waad mahadsantahay inta aad nala soo shaqeysay warqadaada waatana iska bax sidee noqon lahayd maxaa dareemi lahayd dabadeedna go'aan nuucay qaadan lahayd waa qayb ka tirsan dhibaatooyinka haysto dhalinyaro badan oo qaarkood ila soo xiriiray waliba ka shaqeeya isbitaalada ku yaala Muqdisho bahda caafimaadka way is yaqaanaan waa kii isbitaalka kaliya ku shaqeysta dhalinyarada lacag la'aanta inay ugu shaqeeyaan dabadeedna iska diro oo qaadanin ba shaqaale caafimaad lacagna siiyo mushaari isbitaalada way is yaqaanaan maamulada way is yaqaanaan dhalinyarada caafimaadkana way is yaqaanaan waa kii hal iyo laba isbitaalada lagu xanto ee dhalinyarada inta lacag la'aan ugu shaqeystaan dabadeed iska diro koox kale hadana keensato lacag la'aan ugu shaqeysata hadana sii diro isbitaalka noocaas ee doonaya in mustaqbalka isbitaalkaas uu wanaagsanaado waa kii isbitaalka ugu badan ee dhalinyarada dhiigooda ka faa'iideysto xaraanta waxa ugu xun waa qof dhididkiis ina cuntid dhalinyarada habeen iyo maalin caafimaadka ka shaqeysa ee dulman isbitaalo gaar ayaaba lagu xantaa dhibaateeyo ku shaqeysto dabadeedna iska buriyo hadana koox kale keensado 2 sano ku shaqeysto sii buriyo hadana wala yaqaan kuwa hadaadan idinku soo bandhigina ana halkan ku soo qori doono Soomaaliya dhalinyaradu ragga iyo dumarka sheekadan looma kala saarno inkastoo xad gudub jireed uu ka dhaco mararka qaar dumarka lagu sameeyo laakiin hadda waxaan u wada hadli doonaa koox dhalinyaro ah rag iyo dumar iskugu jira qaybo ka tirsan maamulada isbitaalada ku yaala Muqdisho ma aaminaysaa isbitaal dhan oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 50 ilaa 60 shaqaalo 10 kaliya inayba ka noqonaysa mushaari laga yaabo 10 mushaariga 40 ka shaqo badan isbitaalka ay joogto laakiin marka lagu shaqeysto 2 sano 1 sano iyo bar waxa la siiyaa warqadooda ruqsada taasi xaq ma ahan wasaaradda caafimaadka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hadaanan la dejinin sharci qofka caafimaadka soo bartay waa qasab inuu ku shaqeeyo lacag la'aan taas dood kama taagno laakiin ilaa intee la eg ayuu ku shaqeyn karaa lacag la'aanta waxbarasho soo bartay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad waxa laga yaabaa hooyadii iyo aabihi nolol adag inay ku soo koriyeen wiilka ay doonayeen ama gabadha ay doonayeen inay ku nastaanba jaamacada kadib hadii ka waran 3 sano ka badanba lacag la'aan uu isbitaal ugu shaqeeyo dabadeedna la ruqseeyo hadana waanu hadli doonaa maanta waxaan garab istaagi doonaa dhalinyarada caafimaadka baratay ee dalkeena si adag wax ugu bartay ee hadana go'aansaday isla dalkeena inay u shaqeeyaan laakiin ku dulman isbitaalada ku yaala Muqdisho waxaan u hadli doonaa iyaga waxaan ahaan doonaa garabkooda waxaana mar kasta u hadli doonaa ragga la midka iyo dumarka iyaga ee goobaha kale xitaa ku dulman sida warbaahinta Soomaaliya oo kale dhalinyarada wariyaasha iyagu way qabaan dhibkaas laakiin mararka qaar banaanka ay ka soo helaan alaab yaro iska sharuura kuba caafimaadka qudhooda way helaan isla dadka bukaanada iyo dadka soo booqda ama dadka ehelado kale ay ka helaan laakiin taa ma badno marka loo eego dhanka warbaahinta waxaan u hadli doonaa marka oo dul istaagi doonaa isbitaalada ku yaala Muqdisho wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hadayna u dejinin sharci ilaa 6 bilood ayuu qofka lacag la'aan ku shaqeyn karaa dabadeedna waxaad u qori doontaan mishaar hadaana sida nidaamka ah loo dejinin waxa la weyn doonaa marka dambe dhalinyaro Soomaaliyeed oo caafimaad barato dabadeedna ka shaqeysa isbitaalada ku yaala Muqdisho imisa shaqaale caafimaad ayaa ka tahriiba dalkeena imisa dhalinyaro oo wax baratay oo Soomaaliya u baahneed ayaa badaha ku dhintay qaarkoodna saxaraha ku dhintay kuwa kalena ilaa hadda xabsiyada ku jira maalmo koor dhakhtar ay jiray Liibi si xun loogu jirdilay 10 maalmood kaliya jirkiisu dhan isku bedelay dabadeed lacag loo aruuriyo dib loo soo celiyay
maxaa gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey kaliya duruufta ka jirto shaqaalaha dhibaatada ku haysata siiba caafimaadka isbitaalada ku yaala Muqdisho. waxaa cajiiba marka madaxda isbitaalada ka waran nin dhalinyaro ah oo isbitaal ka shaqeeya oo maamul ah oo saaka soo labisto xafiiskiisa fadhiyo, nin kale ama gabar kale oo asaagiisa ah kowda bisha in asaga u dhacda lacag ka badan $1,000, nin kale oo asaagiisa ah oo shaqadu qabanaya mid lamid ah haysane xitaa $10 inay u dhici weyso, xitaa bawrac laga bixin waayo. sidee isaga u damiirkiisa u siin karaa wax ka badan 6 bilood? ardayga markuu caafimaadka soo barto waxaa la dhihi karaa wuxuu soo bartay theory, practical u baahan yahay. practicada inta uu ku jiro wuu dulqaadan karaa wax ka yar 6 bilood, xitaa 1 sano. laakiin sanad kadib shaqadii uu socoto qofkii uu ku shaqeynaya dabadeed iska buri, taas wax fiican maaha. Soomaaliya way u baahan tahay dhalinyarada iyo ragga iyo dumarka caafimaadka ka shaqeeyo in loo hadlo, loo doodo. wasaaradda caafimaadka inay ka soo saarto wada saxan, sharci saxan. wasaaradda caafimaadka hadday ka jiifatane wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waa inay ka soo saartaa sharci arrintan, haddii kale waa la weyn doonaa. dumarka iyaga xadgudub badanaa lagu sameeyaa, taas way caddahay. laakiin isku duub ragga iyo dumarka isbitaalada ka shaqeeyo, isbitaal kasta maanta haddaad kontrooshid oo aad tagtid, xaqiiqdii ilaa inka badan inta mushaharka qaadato oo 3 u jibaaran ayaa ku shaqeysa lacag la-aan, weliba sanad ka badan. wiilal gabdho dhibaatada ay haysato ayaa ila soo xiriiray. waxaa kaaga sii daran qof ku shaqeeya $100 ayaa bishii waxaa laga yaabaa in la dhaho shirkuu kasoo daahay, qalad noocaa soo galay, ganaax looga jartaba lacag ka badan ilaa $50. muxuu qaatay qofkaas? muxuu helay? muxuuna ku shaqeeyaa? dhibaatadan ayaa ka jirta isbitaalada ku yaala Muqdisho. waxaan rabaa inaan u hadalno dhammaanteen isku duuban, dhalinyarada Soomaaliyeed ee caafimaadka baratay ee dadkooda garab taagan. waxaan rabnaa inaan iyaguna markooda garabkooda istaagno oo aan u hadalno. muuqaalkan waxaan kaa codsanaa inaan iyaga ugu doodno. haddaad adigu bahda caafimaadka ka mid tahay, weliba kuwooda dulman, muuqaalka la wadaag saaxiibadaada kale. kuwa kale ee doonaya xaquuqda dadkan inay helaan, iyaguna waxaan ka codsanaa muuqaalkan inay igala qayb qaataan oo ay gaarsiiyaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. dhalinyarada caafimaadka ka shaqeysa way dulman yihiin, ha loo hadlo si dalkeena caafimaadkiisa uu u guuleystaba. mahadsanideen.